soo dhawaada saaxiibayaal wiilkiina sirta films bilowga sheekada haweeney ayaa aragtay waxa aad u cabsi badan virus qariiba oo nafta halis gelinaya ayaa ku faafay dhulka mar haddii uu qofka cudurku helo in aadamku wuxuu si tartiib u bilaabaa inuu adkaado wuxuu noqonayaa mid adag sida dhagaxa oo kale dadka oo dhami iyagoo eegaya midabkooda waxay isku bedelayeen dhagax loo yaqaan mirabel laakiin marka jirku wada dhagax noqdo dhagaxaas uu jajabayo oo burburayay waxaana soo hadhay oo kaliya boor iyo ciid sheekadu waxay ka bilaabanaysaa guri dabaqa oo dhalinyaro xaflad ku dhiganayeen damaashaadkaas dhexdiisa nin ayaa cabsi la'aan soo saaray mashiinka taatuuga kadibna gabadh aad u sarkhaansan ayuu gacanta kaga sameeyey calaamad ama astaan qariiba khamriga dartiis gabadha loo magaceeda la yidhaahdo alfa waxay darantay xanuunka irbadda taatuuga laakiin wax falcelin weyn ah kamaysa samayn fiidkii ayay guriga tagtay iyadoo yaro daalan alfa hooyadeed oo aragtay in gabadheeda uu ka soo uraya khamri aad bay u xanaaqday waxayna alfa geysay suuliga waxayna bilowday inay ugu qawayso biyo kulul markay ka bixisa jaakadii ayay aragtay taatuuga hooyadu waxay bilowday inay ku qayliso xageebaad aaday maxaad u samaysatay taatuuga alfa oo naxsan ayaa tiri ma garanayo hooyadu aad bay u xanaaqday markii ay taas maqashay laakiin xanaaqan waxaa dhab ahaantii ka dambeeyey cabsi hooyadu waxay ahayd kalkaaliso caafimaad waxayna ka cabsanaysay fayraska dhagax noqoshada cidna ma oga halka uu fayraskani ka yimid iyo sida uu ku faafayo tan ugu xunnaa waa in fayraskan uu jidhka bini'aadamka ku dhex jiri karo muddo aad u dheer isagoo aan wax calaamada muujin markii dadku ogaadeen fayraskan mar hore ayuu adduunka oo dhan ku faafay ku dhowaad dunida barhkeed boqolkiiba 50 ayaa cudurka qaaday alfa hooyadeed waxay ka cabsanaysay in irbad wasakhaysan loo isticmaalay taatuuga gabadheeda si degdeg ayay alkool u soo qaaday waxayna nadiifisay goobtii taatuuga iyadoo ku tiri bari isbitaalka imow si lagu siiyo irbadda teetanada fiidkii alfa waxay maqashay hooyadeed oo xanaaqsan oo hoosta ka guuxaysa waxay u qaadatay in hooyadeed ay iyada ka hadlayso xanaaq dartiis ayay qolkeeda gashay iyadoo daawanaysa dhismaha ka soo horjeeda ayay fikrad ku dhalatay waxay xidhatay kaba iyo jaakadeedii waxayna qaadatay boorsadeedii dhabarka waxayna isu diyaarisay inay guriga ka cararto laakiin markii ay balakoonka u soo baxday duufaan xooggan ayaa dhismaha ku ruxday khatarta jirtaa inkastoo ay weynayd alfa way baxday qaylada gabadha markay maqashay hooyada suuliga ayay u soo carartay alfa waxay naflacaari ku haysatay birta iyadoo soo laalaada si lama filaana dhismihii uu ruxmay duufaantiina way degtay hooyadu gabadheeda ayay soo badbaadisay oo gudaha u soo jiiday alfa oo aragtay hooyadeed oo aad u murugsan ayaa laabta gelisay iyadoona si aan kala joogsi lahayn ugu soo celcelisay sorry markan hooyadu maysan canaanan waxayna tiri dib male laakiin mar dambe ayaysan soo laaban subaxdii xigtay alfa waxay tagtay isbitaalkii ay hooyadeed ka shaqaynaysay kalkaalisadii ayaa diyaarisay irbadii teetanada laakiin alfa irbadda way ka cabsanaysay kalkaalisadii waxay tiri malaha alfa aniga ima bogin ee hooyadeed ugu yeedha laakiin alfa ayaa joojisay oo tiri anigaa isku duraya ujeedadeedu waxay ahayd inay ogaato in gabadheeda dhiiggeedu uu fayras ku jirayo in kale alfa hooyadeed ayaa kalkaalisada ku tiri simbal ka qaad laakiin isbitaalka waxaa horey u yaallay seembalo badan oo buux dhaafiyey aad bayna u adkeed in markiiba natiijo la helo kalkaalisadii waxay tiri natiijadu waxay soo baxaysaa 2 toddobaad kadib qaybta ICU-da alfa hooyadeed waxay baadhaysay bukaanada laakiin marinkii dadka badnaan jiray hadda uu haawanayay shalay xitaa cid casho u keentay way weyday waxaa soo baxday in cabsida fayraskan dartiis oo aan wax talaala lahayn dhammaan kalkaaliyayaashii iska casileen shaqada xaaladda bukaanadu aad bay u liidatay kuwa uu cudurku 85% kaga dhacay iskuma filna jidhkooduna wuu adkaaday fayraskan hawada kuma faafo sidaa darteed xaaladdu weli way yara deganayd markii ay gashay qolka gudaha ugu jira waxay aragtay muuqaal naxdin leh bukaan shalay miyir qabay ayaa maanta wada dhagax noqday iyadoo eegaysa bukaanka sariirta saaran ayay si degan uga furtay dareemayaashii waxayna u sugootisay si sharaf leh xilligoodii u dambeeyey sababtoo ah waa inay isbitaalka aado alfa waxay ka dahday fasalkeedii subaxnimo markii la gaadhay wakhtigii homework la gudbinayay macalinka ayaa u yeedhay alfa laakiin markii ay soo jeesatay nabarkii gacanteeda ku yaallay ayaa dilaacay taasoo aysan dareemin dhiig ayaana miiska ku daatay ardaydii fasalkuna naxdin ayay la aamuseen wayna wada argagaxeen alfa waxaa isku dayday inay sharaxdo inkan uu yahay dhaawac caadiya kaasoo gacanta ka soo gaadhay laakiin cabsida fayraska ayaa aad u badnayd oo qof walba wuxuu u qaatay inay alfa qabto cudurka si aan jahwareer u dhicin macalinku wuxuu alfa u diray qolka dhakhtarka ee iskuulka dhammaan saaxiibadeedna si qariib ayay u eegeen arrintaas alfa aad bay uga murugootay laakiin xal kale ma haysan buugaagtii ayay isku laabtay oo fasalka si degdega uga baxday markay bannaanka u soo baxday wiil lagu magacaabo andaryan ayaa kasoo daba cararay dhab ahaantii andaryan iyo alfa way isjeclaayeen markii ay guriga ku soo noqotay alfa waxay rabtay inay yara nasato laakiin markii ay soo jeesatay waxay qolkeeda ku aragtay sariir dheeraada iyadoo yaabanayay qolka fadhiga gashay waxayna aragtay in alaabtii oo dhammi ay isku dhex daadsan tahay waxay u qaadatay intuu soo galay waxayna bilowday inay hooyadeed wacdo laakiin markii ay qolkeeda ku laabatay waxay aragtay nin qalaad oo gudaha jiifa ninkan qariibka ah markay aragtay alfa cabsi darteed ayay jikada ku dhuumatay albaabka ayayna soo xidhatay laakiin ninkii ayaa
ayaa bannaanka soo garaacay. Alfa ayaa miiska ka soo qaadatay mindi yar oo ku tiri ha ii soo dhawaanin, laakiin ninkii waxba kama gelin. wuxuuna u sheegay Alfa, waxaan ahay abtiga hooyada walaalkeed ka yar, markaad yareed dhabtaydaad ku kortay. laakiin Alfa ma xasuusan inay abti leedahay. haddii ay run tahay inay abti leedahay, muxuu 10kii sane ee u dambeeyay u soo muuqan waayey? shakiga Alfa hortiisa abtigeed Amiin wuxuu ku yidhi caafimaadkayga ayaa liita, meelo kala duwan ayaana ku noolaa, hadda uun ayaana soo laabtay, meel uu ku noolaada ma haysan, sidaa darteed ayuu gurigooda u yimid. hadalka Amiin run buu u ekaa, laakiin Alfa way aamini weyday. intii ay isku dayeysay inay xasuusto inay abti leedahay iyo in kale, Amiin ayaa u soo dhawaaday oo mindidii ka dafay. isla markaas hooyadeed ayaa shaqada ka timid. markii ay hooyadeeda aragtay, Alfa way u carartay si ay caawimaad u hesho. hooyadii waxay ku tiri ma la kulantay abtiga? hadda way caddaatay in Amiin run sheegayay. kadib Alfa waxay isbitaalka u aaday in simbal laga qaado, laakiin bukaanada oo badnaa awgeed waxay ku khasbanaatay inay sugto qaybta warbixinta. markii ay fadhiday, waxay aragtay macallimadeeda Ingiriiska oo nin oday oo cudurka qaba gudaha u wada. Alfa way salaantay. markii simbalka laga qaaday, Alfa iskuulka ayay ku laabatay si ay xiisadaha u qaadato, laakiin xiisadii jimicsiga nabarkii gacanteeda ayaa mar kale dilaacay oo kubaddii volleyballka dhiig ka dhigay. markii ay arkeen dhiigga kubadda ku yaala, ardaydii waxay Alfa ku eegeen karaahiye iyo nacayb. macallinkii ayaa isna ka cabsaday in Alfa cudurka qabto, wuxuuna yidhi si degdeg ah isku soo dawee. markii ay Alfa sii baxaysay, waxay aragtay macallinkii kubaddii mara ku qabanaya kuna dhex tuurayay qashinka. saaxiibadeed oo ka fogaaday dartood, Alfa aad bay u xumaatay, xataa Andaryan wuu baqay. markii ay aragtay in Andaryan qudhiisa uu ka shakisan yahay, xanaaq iyo murugo ayay hoolka jimicsiga kaga baxday. iskuulka kadib, Alfa iyo hooyadeed waxay aadeen guriga ayeedeed. maanta waa ciid, qoyska oo dhan halkaasi ayay iskugu imaanayeen. laakiin markii ay jaranjarada gaadheen, Alfa waxay aragtay 2 nin oo marinka jiifa iyo irbado badan oo dhulka daadsan. markii ay guriga ayeedeed galeen, abtigeed Amiin iyo dadkii kale way joogeen. qof walbaana shaqadiisa ayuu ku mashquulsanaa. Alfa aamusnaan ayay miiska ku fadhiisatay. Amiin isagoo yar ayuu daroogada qabatimay, sidaa darteed qoysku si xun ayay ula dhaqmi jireen. cidna Amiin lama hadlayn cuntada dhexdeeda. Alfa waxay aragtay Amiin oo qol galay, hooyadeedna si taxadar leh ayay uga daba tagtay. daloolka albaabka ayay Alfa ka aragtay Amiin oo dhulka suuxsan iyo hooyadeed oo isku dayeysay inay daweyso. markii ay hooyadu aragtay Alfa, albaabka ayay soo xirtay. ayeeyo ayaa timid. Alfana ma rabin ayeedeed ay murugoto, sidaa darteed been bay u sheegtay oo ku tiri hooyo way yara xanuunsan tahay oo qolka ayay ku nasanaysaa. ayeedii warka way qaadatay, waxayna gacanta ku salaaxday wejiga Alfa iyadoo u rajaynaysa farxad. iskuulka carruurtii weli si xun ayay ula dhaqmayeen Alfa, sababtoo ah cidna ma garanayn sida uu u faafo fayrasku. carruurtu way ka baqayeen inay Alfa cudurka qabto oo way ka fogaanayeen, gaar ahaan xilliga dabaasha. intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo nagu soo birta haddii aad nagu cusub tahay, si ay muuqaalada dambe kuu soo gaadhaan. haddii ay u soo noqono muuqaalkeenna, Alfa way ka xanaaqday in carruurta ay caburinayaan, waxayna ku tuftay candhuuf iyadoo leh waa kan hadda adiguna uu ku hayaa. gabadh ay candhuuf ku tuftay ayaa ka argoosatay oo Alfa gadaal ka soo jiiday, waxayna isku dayeen inay biyaha geliyaan. Alfa way la dagaalantay, laakiin derbiga barkadda ayay madaxa ku dhufatay. dhiig badan ayaa ka yimid, laakiin markii ay arkeen dhiigga barkadda ku jira, ardaydii way kala carareen. warkii marka uu hooyada gaadhay, iskuulka ayay timid, laakiin maamuluhu ma ciqaabin ardaydii dhibka geysatay. wuxuuna Alfa ku yidhi fasax qaado dhowr maalmood. xaqiiqadu waxay ahayd in iskuulka ay waalidiin badan cabasho u soo gudbiyeen. waalidiintu waxay ka walwalsanaayeen in Alfa cudurka ay qabto. carruurtayada nooga dhex saar ayay ku yidhaahdeen. hooyadu waxay tiri suginta ay natiijadu ka soo baxayso, laakiin maamuluhu wuxuu yidhi guriga gee, hana soo celinta ay warbixintu ka soo baxayso. hooyada xaqiiqada ayay aqbashay oo ay gabadheeda kaxaysatay. isbitaalka markii ay ku laabteen, hooyadu waxay raadisay natiijadii, laakiin fayrasku muddo dheer ayuu ku jiraa jirka, dhiiguna ma xaqiijin karo ilaa calaamada laga arko. hooyadu waxay go'aansatay hab kale. qolka baaritaanka ayayna Alfa geysay. hooyadu waxay si taxadar leh u baadhay cunaha iyo jirka Alfa. haddii uu cudurku hayo, cunaha ayaa ugu horrayn adkaada, ufacana waxaa soo raaca dhagxaan badan, calooshana xanuun baa laga dareemaa. markii hore waxba kama helin, laakiin markii ay hooyadu istiri way caafimaad qabtaa, ayay Alfa si xooggan u qufacday, waxaana afkeeda ka soo baxay dhagxaan badan. hooyadu way naxday oo meeshii ku qalashay. Alfa markii ay eegtay hooyadeed ayay si degdeg u aaday muraayadda. markii ay isku eegtay muraayadda way naxday. weligeed ma malaynayn in hal xalfad ay nolosheeda burburi doonto oo ay bukaan noqon doonto. ogaanshaha in gabadheedu dhab ahaantii ay cudurka qabto, hooyadu aad bay u walwashay, waxayna si degdeg u bilowday inay dawo raadiso. laakiin fayraskan 10 sano ayuu jiray, saynisyahanaduna xal uma helin. iska badaa talaale, xitaa sida uu u faafo ma garanayaan. waxa kaliya ay ogyihiin waa in dadka bukaanka ay waxyaabo qariib ah u muuqdaan. murugo darteed ayay miiska u dul seexatay, waxayna garan weyday wax la sameeyo. waxay gashay qolka si ay Alfa u dejiso, laakiin albaabka ayay ku aragtay muuqaal naxdin leh. Amiin iyo Alfa oo sariirta yaala oo isku si u gariiraya. markay aragtay gabadheeda oo xanuunsanaysa, kaliya way u ducaysay, waxayna soo xasuusatay markii ugu horeysay ee fayrasku u dilaacay.
isbitaalku uu buux dhaafay dadkuna albaabada ayay xidheen bukaanadana looma ogoleen inay soo galaan bukaanadii argagaxsanaa ayaa albaabka buuq ka abuuray ilaaladu si fiican ulama dhaqmin laakiin isbitaalku dad intaas leeg ma qaabili karin ilaaladuna xal kale ma haysan hooyadu waxay isku dayday inay dejiso dadka walwalsan waxay soo daysay qaar ka mid ah dadka xaaladoodu darnay laakiin dadka cudurka qaba aad bay u badnaayeen in la wada badbaadiyaana macquul ma aha marinka isbitaalka waxaa yaalay bacaha meydka oo madow kuwaas oo ay ku jireen dadka cudurka u dhintay qoysaskoodii ayaa soo doonan waayey sidaa darteed isbitaalku halkaas ayuu uga tegey dhakhaatiirtu aad bay iskugu dayeen inay joojiyaan fayraska nasiib wanaag jidh kasta uu kala duwanaa dadka qaar hal maalin ayay qufaca kadib dhagax ku noqonayeen dadka qaarna sannado ayay qaadanaysay nasiib darro amiin wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee cudurka qaaday xaaladiisuna way darnayd dhabarkiisa oo dhan ayaa dhagax noqday hooyadu markii ay isku dayday inay simbal ka qaado dhiiggiisa ayaa istaagi waayey markii ay faashad saartayna si lama filaana dhabarkii dhagaxa ayaa dilaacay cudurka dartiis alfa iskuul dambe ma aadi karin waxayna guriga la joogtay amiin hooyadu si toosa uma sheegi karin laakiin alfa way ogeed in abtigeed buko markii hore way nacbay laakiin markii ay aragtay sida dunidu ula dhaqantay iyadoo go'doon laga dhigay waxay bilowday inay u naxdo abtigeed markii ay wada hadlayeen hooyadu guriga ayay timid waxayna keentay dhalo weyn oo biyaha waxayna alfa ku tiri biyo badan cab laakiin alfa ma garanayn sababta wax yarna way ka cabtay hooyadu markii aragtay in gabadheedu aysan rabin inay cabto khasab ayay biyaha ku siisay waxay ogaatay in bukaanada biyaha badan cabaa ay si tartiiba jidhkooda u soo noqdo oo dhagaxu ka baaba'o cunahana u roon tahay laakiin amiin wuxuu ogaa inaysan waxba tarayn isaguba wuu bukaa biyuhuna saameyn yar bay leeyihiin haddii qofka bukaa uu liito fayrasku 3 saac gudahood ayuu qofka dhagax kaga dhigaa cudurka xalkiisu waa talaal laakiin iyadu waa dhakhtar caadiya saynisyahanada adduunka ayaa waxba ka qaban waayey maxay iyadu qaban kartaa amiin wuxuu isku dayay inuu walaashiis ku qanciyo haddii alfa mar hore cudurka qabtay aan guriga lagu xidhin ku raaxaysato nolosha ma ogin inta ay noolaanayso ayuu yidhi laakiin hooyadu way diiday cabsi ay ka qabtay in alfa ay cudurka faafiso arrintaa muran baa ka dhashay hooyaduna albaabka ayay qafushay si aysan alfa u baxsan fiidkii alfa oo murugsan ayaa sariirta isku rugtay waxay u qaadatay in nolosheedu sidaas ku dhammaan doonto shanqadh ayaa kor ka timid markay indhaha kala qaaday wax walba caadi bay ahaayeen waxay ahayd riyo amiin oo arkay murugada gabadha walaashiis dhashay ayaa daaqada furay si dhumaalaysiyana guriga uga saaray waxay aadeen baar ay ku sugan yihiin dadka cudurka qaba halkaas dadku way sheekaysanayeen wayna qoslayeen cidina iskuma arkeen inay khalad samaynayaan waxay ka xoroobeen cadaadiska dunida dibadda halkan cidna cid kale ma xukumayso cidna si xun kulama dhaqmayso alfa markay taas aragtay murugadii way ka tagtay oo dadka ay la ciyaartay subaxdii markii ay soo baxeen amiin wuxuu alfa ku yidhi waqtiga ku hadhay ku samee wax kasta oo aad jeceshahay shucuurtaadana soo saar alfa waxay xasuusatay andarian gurigiisa ayayna aaday andarian uu ku farxay laakiin markaas ayay alfa aragtay in amiin dhabarkiisa uu ku yaala taatuugii iyadoo ay samaysatay oo kale waxaa caddaatay in andarian uu taatuugaas u sameeyey isla mashiinkaasna uu alfa u adeegsaday waa halka ay cudurka ka qaaday xanaaq dartiis ayay alfa ku tiri mashiinkaaga fayras baa ku jira ee xanuunka iska baadh inta andarian uusan hadlin ayayna ka tagtay alfa bas ayay raacday iyadoo rabtay inay dunida ka fogaato laakiin baska waxaa saarnaa abtigeed waxayna aadeen xeebta amiin wuxuu codsaday in alfa wax u qabato alfa waxay istiri malaha wuxuu rabaa nabad laakiin waxay ogaatay inuu daroogo soo iibsaday intay isku dayeysay inay joojiso hadalkii ayaa ku dhegay intaysan wax odhan amiin wuu suuxay alfana hoteelka ayay u carartay hooyadeedna way wacday markii ay hooyadu maqashay xaaladda walaalkeed ayay soo carartay waxay xasuusatay dhacdo 10 sano ka hor ahayd isla xeebtan iyo hoteelkan ayuu amiin si dhuumashaha alfa u keenay qolka dhexdiisa ayuuna daroogo ku isticmaalay laakiin alfa oo yareyd ma fahmin waxayna mooday inuu daalan yahay markii ay hooyadu timid amiin neefta ayaa dhibtay nasiib wanaag hooyadu irbad ayay sidatay wayna badbaadisay maanta xaaladda amiin way xumay jidhkiisa ayaana si degdega dhagax u noqonayay wejigiisa barhkiis ayaana hadhay hooyadu aad bay u qalbi jabtay walaalkeed oo gebigiisuba dhagax noqday ayayna ku dul seexatay laakiin markii ay indhaha kala qaaday waxay isku aragtay guriga alfana qolkeeda ayay joogtay xaqiiqadu waxay tahay amiin wuxuu dhintay 8 sano ka hor cudurka awgiis alfa hooyadiis geeridiisa way aqbali weyday cudurka fayraska dhagaxu kuma dhicin alfa ee isla hooyada ayuu ku dhacay bukaanada cudurkan qaba waxay arkaan waxyaabo aan jirin markay dawaysay bukaanada ayay qaaday amiinka ay arkaysa wuxuu ahaa dhalanteed maskaxdeeda ah markii ay aragtay hooyadeed oo murugsan alfa waxay u qaaday hees ay hooyadeed bariga hore ugu heesi jirtay alfana waxay fahantay xaaladda gacanta ayayna qabatay hooyadeed wayna ka kaxaysay guriga si ay isku sagootiyaan markii ay bannaanka u soo baxeen waxaa ka jirtay duufaan huruuda muraayadda gaadhiga waxaa qariyey boodhkaasi waa dadkii dhagaxa ahaa oo burburay wadooyinka cidlo ayay ahaayeen alfana aad bay u walwalsanay waxayna gaadheen guriga ayayda hooyadu markii ay gaadhiga ka degtay waxay mar kale aragtay walaalkeed oo u yeedhaya wayna wada qosleen alfa way ka daba carari lahayd laakiin markay soo degtay waxay aragtay muuqaal yaab leh amiin ayaa boodh noqday
noqday oo hawada ku lumay hooyadeed oo dhulka ooyeysa markay aragtay Alfa way ku qalashay waqtigan xitaa wajiga Alfa waxa ka soo muuqday calaamadihii cudurka xaqiiqadu waxay tahay Alfa qoyskeeda iyo dariskuba mar hore ayay wada qaadeen cudurka bilowgii hore cidda dhulka taala waa dadkii oo dhagax noqday Alfa xaqiiqada ayay aqbashay waxayna go'aansatay inta nolosheeda ka dhiman inay farxad ku noolaato haddii aad ka heshay muuqaalka like saar channelkana subscribe day oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay qaybta faaladan nagula wadaag aragtidaada waa noo muhiim waxayna ku kulmi doonaa muuqaalkan xiga